waxay ku foogan yihiin kala qaybinta dhulkeena uma roona Hindiya oo dhan. waa mid ka mid ah hadaladii uu jeediyay shakhsigii ugu caansanaa gudaha dalka India waxaana uu lacag badan uu ku bixiyay difaaca muslimiinta. Mahatma Gandhi asaasihii Hindiyada casriga ah Karam Chand Gandhi oo lagu naanayso Mahatma waxa uu dhashay 2 bishii November 1869 magaalo lagu magacaabo Porbandar ee dalka India waxaana uu ka dhashay qoys qani ah. jaamacad ku taala dalka Ingiriiska ayuu ka bartay culumta qaanuunka. qoyska uu ka dhashay Gandhi ayaa haystay diinta Hinduuga 3 sano kadib waxa uu ku soo laabtay Hindiya in muddo ah markay ka soo wareegtay joogitaankiisa Hindiya. waxa uu socdaalay qaar ka mid ah dalalka dhaca koonfurta qaaradda Afrika halkaasi oo ay gacanta uu ku hayay guumeystihii Ingiriiska. cunsuriyadda ayaa xilligaasi si weyn uga jirtay dalalkaasi. guumeystihii Ingiriiska ayaa soo rogay qaraar sheegaya in aanay codeyn karin doorashooyinka dadka asal ahaan ka soo jeeda dalka India. Mahatma Gandhi ayaa go'aansaday inuu meesha ka saaro qaraarkani waxaana uu xisbi siyaasadeed uu ka asaasay koonfurta qaaradda Afrika kaasi oo ujeedadiisu ay ahayd difaaca dadka ka soo jeeda Hindiya. arrintaasi ayuu ku kasbaday taageerayaal badan. afkaartiisa siyaasadeed ee ay ku qotonto aragtidiisu ayaa abuurtay jahwareer siyaasadeed kaasi oo gaadhay heerkii ugu sarreysay. Ingiriiska oo isku dayaya xakamaynta faafitaanka aragtiyaha siyaasadeed ee Gandhi waxa uu fuliyay falal ka dhan ah banaanbaxayaasha oo ay ka mid yihiin jirdil, xadhig iyo weliba dil. sanadkii 1915 ayuu Gandhi uu ku soo laabtay Hindiya xilligaasi oo India ay ku jirtay gacanta guumeystihii Ingiriiska ayaa xilligaasi waxa uu soo saaray qaanuun kale oo sheegaya in qof kasta oo soo galay India uu ku biiri doono dagaalka isla markaana uu ka qayb qaadan doono dagaalkii koowaad ee adduunka. Gandhi waxa uu diiday go'aankaasi wadaxaajood badan. Gandhi waxa uu ogolaaday qaraarkaasi isagoo oo ku xidhay shuruudo. Mahatma Gandhi waxa uu gudaha India uu ka aasaasay koox taabacsan oo ka soo jeeda kooxda Hinduuga ee ku dhaqan gudaha dalka Hindiya. guud ahaan dalka India ayaa laga taageeray Gandhi soo abaabulidda banaanbaxyo lagaga soo horjeedo kootadii uu Ingiriisku uu ku qaatay samaynta milixda awgeed. banaanbaxyadaasi ayaa socday muddo 14 cisho ah. taariikhdu markay ahayd 1937 Mahatma waxa uu iska casilay xilkii uu ka hayay xisbigii uu gacantiisa uu ku aasaasay. India ayaa gashay khalkhal siyaasadeed 2 sano kadib waxa bilaabmay dagaalkii labaad ee adduunka. Ingiriiska ayaa mar kale India ugu baaqay inay ka qayb galaan dagaalka. Mahatma Gandhi ayaa isna diiday baaqaasi uga yimi Ingiriiska. mar dambe ayuu ogolaaday ka qayb qaadashada shacabka India ee ay kaga qayb galayaan dagaalka labaad ee adduunka. waxa uu shuruudo uga dhigay in Ingiriisku uu madax banaani uu siiyo India. intii Ingiriisku aanu ka bixin India waxa uu kala qaybiyay 3 qaybood oo ay ugu waaweyn yihiin muslimiinta iyo Hinduuga. muslimiintii waagaasi ku dhaqnay dalka India ayaa dalbaday in Hinduuga laga saaro dalka India. Pakistan iyo Bangladesh ayaa ka kala farcamay India oo kaliya iyaga oo noqday dalal madax bannaan. Mahatma Gandhi ayaa bilaabay olole uu kaga soo horjeedo kala qaybinta Hindiya. ololayaashaasi ayaa noqday hal bacaad lagu lisay. sanadkii 1948 ayuu geeriyooday Gandhi da'diisa oo ahayd 78 jir kadib markii uu rasaas uu ku furay nin ka soo jeeda qoomiyadda Hinduuga. waagaasi oo ay si weyn iskaga soo horjeedeen muslimiinta iyo Hinduugu. Mahatma Gandhi ayaa ku sii aadanaa masjid iyo oogista mid ka mid ah 5 salaadood. xilligaasi oo ay Hinduugu ay si weyn u necbaayeen Gandhi waxa uuna Hindiya u horseeday madax bannaani. sanad guurada dhalashadiisa ayaa India waxa ay ka tahay munaasabad la xuso sanad kasta.